السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada dhalinyaro maanta dhalinyar badan waxay codsanaysaa ama muuqaal wax iga codsatay update-yadii ugu dambeeyay ee cryptocurrency iyo cryptocurrency sida looga faa'iideysanayo ama suuqani sababta uu sare ugu kacay marka suuqan sare u kaco dadku aad bay u xiiseeyaan marka sare hoos u dhacana sida caadiga dadku way iskaga tagaan oo waxba xiiso ma hayaan laakiin suuqani wuxuu faa'iido leeyahay marka sare uu hoos u dhaco marka sare laga faa'iideysan karayo suuqan hadda aynu arkaynaa waxaa la dhahdaa cryptocurrency baa lasku dhahdaa dhammaantood suuqan waxaa la dhahdaa cryptocurrency haddaba dhalinyar badan baa waxay codsanaysaa inaan muuqaal uga sameeyo cryptocurrency si guud iyo sidii looga faa'iideysan lahaa cryptocurrency hadda website-kan dur joogna waxaa la dhahdaa Coincheco waxaad ka helaysaa information-ka ama xogta saxda ah ee coinanku ay marayaan ama halkii coinba qiimihiisu intuu marayo iyo news-yada iyo wararkii waxaasaad ka helaysaa sidoo kaleeto coin market cap la dhahdana waad ka helaysaa haddaba waxa ugu sareeya ama waxa ugu qaalisan ama coinka ugu qaalisan cryptocurrency hadda waa bitcoin-ka weeyaan bitcoin-ka hadda wuxuu marayaa 5,900,000 meeldhow wuxuu gaaray hadda waxaan ka eegno trade view-ga meeldhow wuxuu gaaray 99,000 ama 9,900,000 ayuu gaaray 9,900,000 ayuu gaaray halkii xabo cryptocurrency haddaba waxay soo bilaabantay ilaa iyo 2007 meelaha 2008 ayaa la sameeyay bitcoin-ka ugu horreeyay wixii ka dambeeyay maalin kasta waxa la sameeyay coin ama lacag cusub oo crypto ah haddaan si guud kugu sharaxo cryptocurrency waa lacago digital ama waa coins digital oo si caadi ah wax loogu kala iibsan karo haddaba suuqan waxa qiimo u yeela ama ka dhigi kara lacag waxa weeyaan projectiska ama waxa qiimo u yeeli kara coinankan ama macno u samayn kara waxa weeyaan coin walba waxa leh community ama koox baa leh ama group baa leh ama shirkado weyn baa leh shirkadaas waxa ay mustaqbalka qabanayso ama waxa mustaqbalka ay rabto inay xagga teknolojiyada ku soo kordhiso ayaaba coin-kooda ku saleysnaan doonaan badankooda waxay ku saleysan yihiin intan hore waxay ku saleysan transaction-ka lacagaha la isdhex marinayo sidii loo fududeyn lahaa Solana iyo Ethereum iyo waxyaalahaas iyo waxyaalo badan oo kale oo ay fududeynayaan way jirtaa laakiin mostly waxay fududeeyaan transaction-kan markaan akhriyay 90% waa transaction bay ay fududeeyaan qaar kalena waa gaming ama waa waxyaalaha gameska ah ay leeyihiin mustaqbalka waanu kor baan u qaadanaa qaar kalena waxay leeyihiin waxaanu sameynaynaa waxa la yiraahdo internetka iyo waxyaalahaas wixii la xiriira ama free ka dhigno ama internet tayale aan soo saarno xagga marka teknolojiyada noqoto macnaha blockchain gudihiisa haddii aan ku soo koobo cryptocurrency waa suuq weyn oo lacageed oo lacag digital ah lagu kala sarrifto oo lacagtaada caadiga dollarka ayaad waxaad u bedelanaysaa lacag coins ama asset caadi ayaad iibsanaysaa halkan suuqa forex waxay ku kala duwan yihiin xaggii aad adigu ka ahayd sarriflaha halka sarrifle matid lacag caadi ah ayaad iibsanaysaa ama shay caadi ah sida neefka xoolaha oo kale ayaad iibsanaysaa hadduu qiimihiisu hoos u dhaco waad iska sugaysaa waana iska iibin kartaa hadduu qiimihiisu kor soo kacana waad iibinaysaa marka haddaba suuqan coin-ka ugu caansan saan ku sheegay waxa weeyaan bitcoin hadda wuxuu marayaa 5,900,000 haddaba waxay isweydiin lahaa bitcoin maxaa 5,900,000 halkii saaxiiba ka dhigay sama iibsan karaa haddii aan horta kuu sheego waxaa ka dhigay 5,900,000 waxa weeye waqtiyadii la soo dhaafay mar walba marxalad ayaa jirtay uu adduunku marayay mar adduunka ay lacagiisu isbedelayeen mar uu dahabku qiimo dhacay mar uu dahabku qiimo yeelanay mar uu dollarku hoos u dhacay mar uu dollarku qiimo yeelanay markasta oo xagga dollarka la yiraahdo lacagtan markasta dollarku uu xun yahay waxa wanaagsan lacagtan way wanaagsan tahay oo aad baa loo maalgashadaa laakiin waxa isweydiin isagoo dollarkina kor u socdo ayaa hadda bitcoin-kina kor u socdaa sababtu waxa weeye ninka la yiraahdo Donald Trump ayaa suuqan yiri ama coin-ka la yiraahdo bitcoin waxaan rabaa in aan ka dhigo coin loo isticmaali karo sida lacagahan oo kale marka muddadii uu ololaha ku jiray wixii ka dambeeyay dhan dadku aad bay isha ugu hayaan cryptocurrency oo dhan gaar ahaan bitcoin waxay doonayaan inay maalgashadaan marka bitcoin wuxuu marayay ilaa iyo dhowr 50,000 ilaa 60,000 buu marayay markii uu suuqan lagu saadaalay inuu Donald Trump soo bixi doono oo lahaa waxaan sameynayaa suuqa bitcoin waxaan ka dhigi doonaa ama coin-ka bitcoin mid caadi loo isticmaalo marka laba dhanba waa dhaqaalihiisa ugu fiicnaa wuxuu yiri soo kaleeto dollarkiina qiimihiisu kor buu u kacay sababtoo ah Donald Trump uu u fiican yahay xagga dollarka ama dhaqaalaha waddankaasi bitcoin-na waa labadaba maskarabooda ayaa buu leeyahay ninkani marka bitcoin maadaama uu yiri waxaan ka dhigayaa lacag caadi ah oo wax lagu kala iibsan karo qof walba wuxuu sugayay soo bixitaanka Donald Trump markii uu Donald Trump soo baxay waxay ka timid ilaa 60,000 markii ay waxa tagtay 9,900,000 halkii xaba bitcoin-ka dhammaan wixii ka dambeeyay ama kuwan ka yaryar sida Ethereum Solana waxaan oo dhan way ka soo wada daba kaceen
iyaga oo meel hoose maray ay kasoo daba kaceen marka sala bitcoin uu kor u kaco waa khasab in coinanka kale oo dhan ee projectkooga uu fiican yahay inay kor usoo wada kacaan haddaba waxay isweydiinaysaa see baad uga faa'iidaysan kartaa cryptocurrency ama bitcoinna hadda kulama taliyan inaad iibsato haddii aadan ahayn qof lacag buran haysta hadda lacag buran haysto iibsan kartaa oo boqolaal kun aad haysto dhowr mar baad iibsan kartaa laakiin sida caadiga kugulama taliyan hadda sida dadka caadiga jeebkooda iska yaryahay aad tahay ama meel dhexaad tahay waxaan kugula talin lahaa dhowr coin inaad iibsato investment baa jira iyo trading waxa la dhahdo investmentku waa maalgashi waqti dheer sida 2 sano 3 sano iska sugto oo ay kor u kici doonto waxaan kugula talin lahaa coinanka ay ka mid yihiin Solana XRP soo kaleeto waxaan kugula talin lahaa Cardano saddex halkaas aad haysaa Avalanche waa okay isna waad maalgashan kartaa shiiba iyo waxa iska daa ama maalgelinin waxyaalo shitcoin la dhahdo jirta oo aad ka taraargelin karto laakiin maalgelintooda ayna fiicnayn oo projectkooga iska macnaha aan awood u lahayn marka haddii aad rabto hadda aan waxaan kugula talin lahaa coinka la dhahdo Solana waxa ka iibso hadda waxoogaa haysto وخاصة من Solana ka haysta Ethereum noo fiican laakiin kastuu qaali yahay hadda 3,000 waxba ayuu marayaa laakiin hadda waxoogaa dhowr 20 dhowr 60 haysto Ethereum isagana 2 ilaa 3 mar ka iibso waa marka laga hadlayo xagga investment soo kale waxaan kugula talin lahaa isagana inaad ka iibsato XRP $1 buu marayaa ka aad buu fiican yahay waa kugula talin XRP iyo Cardano oo iyaduna $1 maras labadaha $1 maraya aad baa kugula talin lahaa inaad iyagana investmentka aad ilaa iyo dhowr boqol xaba ka haysto 200 ilaa 300 ilaa 400 ama ilaa 500 xaba inaad ka haysato oo meel iska dhigato kaasi waa investment ama waxa waqtiga dheer aad doonayso inaad sugto suuqa soo looga trade gareyn macnaha ku yar dul maraya waxa jirta wax la yiraahdo daily trading ama trade aad qaadanaysid trade waxa ugu wanaagsan coinanka dhaqaaqa leh sida Dogecoin oo kale waa ka trade gareyn kartaa oo trade macnaha waa maalinlaha ama labada maalmoodba meesha aad ka qaadan lahayd lacag ama aad inta $200 tusaale gelisa ama aad $500 geliso ka bacdina marka 20% ama 20% ay dhaqaaqdo aad macnaha iska iibin lahayd tusaale haddaan ku tuso kan meeshan waxa la yiraahdaa trading view waa meesha laga eego xogta ama xagga lacagta u socoto technically macnaha waxa ka wadaa meelaha ay istaagtay topka meelaha bottomka meelaha ugu sarreeya gaadhay meelaha macquulka ay hadda taagan tahay in laga raaci karo iyo aan laga raaci karo waxaa jira mid kale aad u muhiim ah oo la yiraahdo fundamentalku marka macnaha waa wixii la xiriira sida coinka newska ka soo baxaya warka cusub coinka ka soo baxay kaas aad u muhiimsan technically kaas ka muhiimsan inaad hayso inaad xogta coinka aad iibsanayso ama maal gashanayso waa inaad haysaa maxay qabanayaan maxaa ka cusub maxay leeyihiin waan soo wadnaa maxaa news maalmihii dambe ka soo baxay news xun news wanaagsan taas waxay ku horseedaysaa inaad coinka ama iibsato ama aad ka trade galisaba taas ku horseedaysaa markaad xog buuxda aad ka hayso coinka waxa la yiraahdaa fundamentally waxay leedahay website gaar ah oo fundamentally laga fiiriyo oo website oo aad ka heliso xogta coinkaasi oo dhameystiran ayaad ka helaysaa kuwa waxa la yiraahdaa website gaar ah jira oo fundamentally la fiiriyo hadii aad baahantiin xagga commentiga aad soo qori doontaan waa idin soo sheegi doonaa coin walba sida aad xogtiisa u dabagelayso white paperkiisa waxaas kaga akhriyayso coinka markaad xogta soo hesho white paperkiisa soo akhrido oo markaan waxaan ka hadlayaa investmentka aad xogtiisa soo wada hesho meelo badan aad ka eegto aad ogaato in coinkaasi aad u fiican yahay dad badan ay maal gashanayaan oo market capkiisa aad eegto ama lacagta ku jirta intay leeg tahay ay dadku ku aamineen ayaad adna aamini kartaa oo iibsan kartaa waxa ka soo waxa la yiraahdaa technically mustari wuxuu fiican yahay markaad trader tahay ama daily trading sameynayso ama maalinta aad doonayso inaad waxooga lacag ka qabato tusaale $200 aad geliso aad rabto $30 $50 wax noocaas aad ka qabato ama aad 200 waxa dhigan ama aad percentage ku xidhan tahay aad percentage fiican aad ka qabato waxaan kula talin dhowr coinanka cusub ee soo galaya aad bay fiican yihiin dhinac kale aad khatar u leeyihiin coinanka soo galaya faa'iido haddii ay dhaqaaqaan percentage fiican bay dhaqaaqaan 500% qaar dhaqaaqan arkay qaar 200 dhaqaaqa qaar 100% dhaqaaqa laakiin hal mid ayaa kugula talin lahaa kuwa ha ku degdegin ma kulan lahaa markaad aragto bitcoin oo meel waxa imanaya hadda meel sare maraya meeshan oo kale lagama iibsan karo haddii imka hadda uu hoos u soo daadego oo uu yimaado ilaa iyo meelaha uu yimaado bitcoinku uu yimaado 70,000 oo kale ama meelahan uu yimaado suuqan dib u raaciisa adiga kan ma raacisid laakiin maadaama dib u soo kacayo waxa jira coin yar oo daba yaacaya marka trade gareynayso macnaha coin yar oo daba yaaca ayaa jira adoo bitcoin kana iyaga iyo dhinaca dharashanka u socdo haddana waxaa jirta coin yar oo aad ka trade gareyn karayso oo aan ku leeyahay inaad ka trade garayso waxyaalaha waxaa ka mid ah coinanka yar sida Dogecoin oo kale GMT mid la yiraahdo kuwa kale Flagas la yiraahdo way badan yihiin waa coinan qiimahooduna aad u yar yahay hooseeyo soo kale trade-kooduna uu fiican yahay
xagga sareed ku qoraysaa tusaale flow oo kale waa kuwaas dhaqaaqa fiican sameeya flow USDT haddaan eegno waa kuwa dhaqaaqa wanaagsan sameeya flowda marka saa usoo gasho hadda meel sare ayay maraysaa waxaan taaganay 4 hour haddii aan trade view-ga aqoonin markaas waxay noqonaysaa in xoogaa yar fiicanto sida uu shaqaynayo imika suuqan waad arkaysaa kor buu u socday qofkii kasoo qaatay meelahan waa maalmihii bitcoin-kuna uu sida fiican kor ugu kacay baan filayaa meelaha qofkii kasoo raaca ilaa iyo wuxuu ka hayaa percentage fiican oo ilaa iyo 90% 90% waxaad ku dhufanaysaa lacagta aad gashatay marka hadda suuqani meel laga raaca ma laha markaan anigu imika soo eego waxaan la sugayaa ilaa iyo inuu yimaado meelahaas inuu yimaado suuqani ilaa meelahaas inuu yimaado markuu meelahaas yimaado waxaad eegi doontaa technically waxaa jirta waxa la yidhaha strategies oo la isticmaalo oo qofku u eegto ama xog uu qofku ururiyo oo marka ay meelahan oo kale tusaale noqnoqoshadan ayaa dadku waxay sameeyaan waxay u dhigtaan isbaarooyin ama meelaha top time isbaarooyin bay u dhigaan meelaha downka ana isbaarooyin bay u dhigaan soo tusaale halkan oo kale haddii uu hadda yahay button yahay ama meel lacagta mar hore aad laga kiciyey mar labaad laga kiciyo waa possible adigoo technically wax badan raacin waan ku yar dul marayaan laakiin san kuma trade gareynaysid waxaad ku trade gareyn doontaa inaad barato khasab technically sida chartkan loola socdo okay intaa markaad fahanto meeshan hoose markuu yimaado waad raaci kartaa waxaanad ka eegan kartaa ilaa percentage fiican tusaale $300 ama $200 baad geysay kabacdina percentage-ka waxaa kaa badan 30%kaas uu kaa badan 30% baad kala baxaysaa waxaad ku dhufanaysaa lacagtii aad kusoo gashay saas ba suuqan looga trade garaya waan kuu dul marayaa si aad u dhiibliya maaha laakiin suuqan saasaa looga trade garaysa dhayliga ah marka meelaad ka trade garanaysa waalkee waa waxyaalaha horta lagaaga baahan yahay jirta inaad haysato kow waa inaad haysato exchanger verified ah kow suuqa shuruudiisa waxaa kamid ah inaad haysato exchanger verified ah waxaa kamid ah Binance iyo waxaa kamid ah kuwa la yidhaahdo Gedayo mid kaloo la yidhaahdaa jirta Bybit way badan yihiin markaan waxaa kugula talinaa marka hore ugu horreyn waa inaad diyaarsataa Binance-gaaga ama waa inaad diyaarsataa Binance waa company-gan waa exchanger waxaa laga leeyahay China filaya waa sarif leh ku sarifaya lacagta dollarkaaga caadiga kugu bedelaya coinanka kabacdina markay ku kacdana aad isku dhex iibinayso isla isaga kabacdina aad kala soo baxaysa lacagta ama wallet meel yar oo boorso oo gaar oo la samaysto intaad samaysato aad gashanayso okay so Binance markaa waa kay ugu caansan buu kamid yahay ama kuwa ugu caansan inta badan la verified garaysto ama macnaha verified wax kale maaha waa inaad baasaboorkaaga iyo xogteedii aad gelisaa Binance kabacdina aad u dirtaa waa meeshana waa isdiiwaan gelinaysaa markay isdiiwaan geliso xataa mobilka lagu isticmaalo suuqa application waa isdiiwaan gelinaysaa markay isdiiwaan geliso waxaad samayn doontaa markay isdiiwaan geliso waxaad samaynaysaa verified ka dhigo verified baan kugula talin lahaa saa loo verified garanaya haddaad u baahantiin waan idin soo muuqaal baan idinka samaynayaa exchangerkan ama kuwa kale la midka ah markaad ka samaysato kadib lacagtii baad kusoo shubi doontaa exchange ayaa kugu soo shubi doona Soomaaliya ama adigaaba si toos ah haddii aad wadankaaga laga ogol yahay waad kusoo shubaysaa markaad ku shubto coinka ayaad iibsanaysaa markaad coinki iibsato coinka aad iibsatay waad iska haysan kartaa waana sii iibin kartaa haddaad trader tahay oo maalintii rabto faa'iido inaad kasoo xarayso coinkaasi dhowr saacadood ayaad haysan ama waxaad haysan ilaa iyo 10 ilaa 20 saacadood ugu badnaan waad haysan kartaa wixii ka dambeeyana waad iibin kartaa marka suuqan saasa looga faa'iideystaa waa malaha suuqani hoos u socod dadka qaar ba waxay yiraahdaan sidii forex oo kale maan hoos loo soo gelin hadduu meel sare marayo may coinka aad iibsatay waa asad caadiya si toos ah ayaad u iibsatay marka barta u mariyay laga iibiyo hadda halka u sarreeyay aad ku iibsato qiimihiisu ma hoos soo dhacaya ugu coinkii laga iibiyo 100 xabo aha 100 xabo haysanaysa marka haddii hoos uu kula soo dhaco waxaan kula talin lahaa dadka qaar ba markaaba iibiyo markuu hoos ula soo dhaco yiraahdo minus buu hayaa marka waxaan kula talin lahaa daa wuu laabanaya suuqu waa hubantiin oo suuquna aad buu u fiican yahay hadda sababtan muuqaalka ugu sameeyay waxa weeyaan cryptocurrency aad bay u wanaagsan tahay in la maal gashado iyo in laga trade gareeyo labadaba dakhli fiican ayaad ka samayn karaysaa laakiin waa lacag haysta lacag ba lacag hurta lacag yar wanaagsan waxaan kula talin lahaa $50 $20 waxaas dhibaato ay kugu noqonaysaa akoonka noocaas aad u koraysaa iska adkaanaysa marka suuqan waxa laga yaabaa maalmaha qaar 3 ilaa 4 cisho ilaa 7 inaanu hore u dhaqaaqinba ama uu sida forex oo kale ma xawaareeyo laakiin wuxuuga inuu ma dhowr maalmood u taagnaada laga yaabo marka inaad dulqaadkana yeelato loo baahan yahay soo kaleeto lacag $100 wixii ka badana iska gasho 200 300 waxa gasho marka trade gareynayso maalgelintana saan kuu sheegay intii karaankaaga maal gasho suuqan haddaba saas buu u shaqeeyaa saas baana looga faa'iideystaa muuqaalka yar gaaban baan ugu talagalay inaan idinka sameeyo waxyaabaha suuqan haddaba aad u baahan tahay inaad barato waxa kamid ah fundamentally sida loo analyze gareeyo technically sida loo analyze gareeyo waxaa jira gruubo waaweyn oo ay Soomaali leedahay oo aad ka baran karto technically iyo fundamentally ba si aad ugu trade gareyn lahayd
muuqaalka yar gaaban muuqaalka gaaban baa idiin sameeyey oo aad xogtiina aad ku fahmi doontaan insha Allah intii u baahnayd cryptocurrency wax ka fahanto wixii aadan ka fahmin commentiga soo qor muuqaalaga gaaban oo degdeg ah ayaan idinka samayn doonaa sidoo kale telegram channelkeena ku soo bir wixii information ama wixii coinana ee cusub ayaan halka idinka socodsiin doonaa soo kaleeto waxaa jirta wax la yiraahdo airdrop oo aad maqasheen sida hamsterkii wixii kamid ka ahaa telegram oo ku jiri jiray shalay waxaa soo galay baan filayaa mid la yiraahdo major aad buu iska fiicnaa ciddii ka haysatay major ka haysatay airdrop ama coinka tokenka la yiraahdo major airdrop ka haysatay way iibin kartaa hadda markii la qaybinayay 2 cisho ka hor bay aad baan filayaa 2 cisho ka hor hadii markii la qaybinayay aad xaadir ahayd waad ka heshay waxaagii ka waxaan ka wadaa macnaha airdrop waa coin lagu sii siinayo ama waa coin aad si free ku helayso laakiin aad muddo sugayso taskis wax la yiraahdo aad qabanayso taskis wax kale ma aha shaqooyin baa lagu dirayaa soo tusaale YouTube channelkooda ku biiraysaa Twitterkooda Facebookooda waxaas ku biiraysaa ka bacdina coinaan bay si free ku siinayaan muddo kadibna saas ay way ku qaybinayaan iyagoo sidoodiya marka lama hubo qiimo markaa ku soo gelayo kaasi lama hubo qiimaha uu ku soo gelayo orderabyadu airdrop intaan arko waa laba qaar Telegram laga oo saan ku sheegayo aad channeladoodun ku biirayso ka bacdina iyagoo ay si free ku siinayaan baa jira kuwa kale iyaguna airdrops caadi wax jira website waaweyn oo aad caadi u iibsanayso kuwaasi oo hubantiin tahay taas inuu suuqa soo gali doono laakiin qiimo ku soo gali doono ma ogid ka waxaan ku leeyahay inaad aqoon badan u yeelato markaad iibsanaysid ka Telegram waa free 90% saan arkay oo subscribe ka waxa sumad siisanaysaa maalintiina waxoogaa yar daily-gina waxoogaa baad qabanaysaa sida tusaale inaad aad coinankii lagu diyaariyo qaadato claim tiraado inaad soo kaleeto waxyaalo yar cusub isoo kordhiyo ama muuqaalo aad daawato ka bacdina ay ku siiyaan coinan ay kugu talagaleen waxaa jirta airdrop labaad airdropku ka labaad waxa way ku website waaweyn aad website waaweyn baad booqanaysaa si caadi ayaad u iibsanaysaa coin aan weli suuqa soo gelin airdropku wax aan weli suuqa soo gelin laakiin lagu soo wado suuqa oo qiimo ku soo geli doona marka qiimaha ama waad ku faa'iidi ama waad ku khasaari taasi marka waxa kula talin lahaa kad iibsanayso waxaa jira dad badan oo iibsada airdrop dadka horta hadii saan markaan u eegay ilaa 70% way ku faa'iideen laakiin 100% ay ku khasaaraan balaga marka lacag buuran ha gelinin markaad airdrop iibsanayso airdrop waa coin isagoo suuqa soo gelin lagu oranayo community-ga la soo oranayo iibsada la oranayo ka bacdi marka la iibsado ayaa suuqa lagu soo dinayaa hadii aad 100 xabad iibsato oo laga siiyo $100 waxa laga yaabaa suuqa markuu soo galo in xabad ay ku soo gasho $3 ama $5 marka $5 faa'iido ay ku jirta $1 baa laga siiyay $5 soo suuqa ku soo galo waad garasa faa'iido ku jirta soo kale inta badan 0.0 iyo waxbay ku soo galgalaan marka taan waxa ku leeyahay laha aad inaad aqoon ugu yeelato oo wixii airdrop ah labada nooc bay u qaybsamaan kuwa free lagu siinayo iyo kuwa lacagta laga qaaday marka kuwa lacagta laga qaaday mostly iska ilaali waa inaad aqoon badan leedahay airdrop waxa la yiraahdana inta yar baan kaaga sheegaya waayo muuqaalkaasi dheeraanay hadii kala muuqaalkan waa hordhac aan ku fahansiinayo arday badan oo baahnayd inay fahanto bal cryptocurrency iyo wuxuu yahay marka suuqa balaaran waxay idin rajaynayaa khayr والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته